cabdi faarax shirdoon saacid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya wuxuu wax ka yar 11 bilood ku noqday mid ka mid ah musharaxiinta loo saadaalinayo xukunka filla Soomaaliya Xasan Sheekh Kadib geediga sagaalka siyaasi ee ay hormuudka u yihiin Cabdikariim Xuseen Guuleed Fahad Yaasiin Taabir Cabdi Salaaw Ducaale Guuleed Saalax iyo Cabdi Aadan Hoosow waxay saacid ka dhigtay tartamo dhab ah balse dhinaca kale u birista xubnahan waxay saacid u abuurtay cadaawad siyaasadeed oo mucaarad iyo muxaafid uga imaanaysa wuxuu bartilmaameed u noqday saddex dhinac waxaana hortaalla saacid iyo kooxdiisa su'aal ah ma ka badbaadi doonaan dagaaladaasi siyaasadeed dhinaca koowaad waa madaxweyne xasan sheekh iyo kooxdiisa saacid wuxuu noqday marka madaxweyne xasan sheekh laga tago ninka labaad ee ugu koox siyaasadeed ka fiican dalka waqti xaadirkan xubnaha uu qaatay ugu yaraan kala bar waxay markoodii hore ka mid ahaan jireen safka xasan sheekh falsafadda ah inaan qof keligii socda cidna dooranayn waxaa weligii ku caanamaali jiray madaxweyne xasan sheekh hadda aragtidii waa lala qaatay kooxdiisii hore rag ka mid ahna xisbiga haybad qaran ayay ku biireen hab ugaarsigiisina waa wataan wuxuuna madaxweynuhu aaminsan yahay sida la warinayo inay xubnahan yihiin khatar ku soo wajahan oo u baahan inuu ka hortago durba xasan sheekh waa bilaabay dagaal siyaasadeedkiisa ku wajahan kooxdan sida la sheegayo kooxda labaad waa madasha samata bixinta mucaaradka habdagaalkii madasha samata bixinta ayaa si buuxda isku bedelay si aanay aamini karin xubnaha madasha qaarkood saacid ayaa intii ay ragga qaar ku mashquulsanaayeen cays siyaasadeed wuxuu ku kordhistay koox culus oo siyaasadeed isagoo helay siyaasiyiin loo yaqaano inay qof dhisi karaan xubnaha madasha samata bixinta mucaaradka marka saacid laga reebo haddii uu markii hore dagaalkoodu 100% ku wajahnaa madaxweyne xasan sheekh iyo nidaamkiisa hadda waxay 50% dagaalkooda u weeciyeen inay burburiyaan kooxda la baxday heybad qaran oo ah saacid sagaal siyaasi oo kale oo dhammaantood dalka xilal ka soo qabtay iyo ugu yaraan sodomeeye kale oo siyaasiyiina oo sagaalkaasi ka farcanta oo ay ku jiraan xildhibaan heer federaal ah inta u dhaxaysa filla Soomaaliya iyo Hotel Jazeera waxaa ka dhex dhisantay buunda siyaasadeed oo la yiraahdo saacid waana in iyada la dumiyaa ka hor inta aan la dumin saldanada xasan sheekh ayaa laga soo wariyey mid ka mid ah musharaxiinta madasha samata bixinta mucaaradka kooxda saddexaad ee dagaal siyaasadeedka kula jirta saacid waa tiimka farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid mar waa isku dhari oo tani waxay abuurtay loolan qabiilka dhexdiisa ah marna kooxdii farmaajo ka soo tagtay ayay hadda dhisaysa saacid madaxweyne farmaajo culayska ay soo saareen raggii ka tegay ee saacid ku biiray ee uu Fahad Yaasiin ugu horeeyo waa inay muujiyeen inay iyagu ahaayeen xubnihii kooxda dhisi jiray farmaajo waa inuu hadda koox cusub oo siyaasadeed dhisaa oo uu caddeeyaa inuu isagu ahaa furaha iyo muhiimadda kooxda ama waa inuu kooxda saacid jilaafaa si uu u caddeeyo inuu mar walba isagu ahaa tiirka meeshan waxaa ka jira loolan hoose oo lafajabi siyaasadeed ah si walbaba siyaasiyiinta isugu tegay inay saacid dhisaan sanadkan natiijada ay keeni karaan waxaa ka horraysa sida isaga badbaadiyaan furimahan oo ay ilaa iyo doorashada u gaaraan iyagoo aan la kala jabin uguna adkaystaan duruufaha siyaasadeed ee imaan kara bilaha soo socda